الذي أصبح لا يطاق هو فقدان الحرية. كثيرين من المواطنين السعوديين من اختفوا قسرا في السجون وآخرين اختفوا اختيارا. 15 أكتوبر kooxda baaritaanka iyo xaqiiqo raadinta badigoobka wariyay Jamaal oo isugu jiray saraakiil Turkish ah iyo koox Sacuudi ah ayaa galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Turkiga markii ugu horeysay waxaana saraakiisha Turkigu ay shaaciyeen inay heleen cadeymo kale oo dheeraad ah warar ay baahiyeen TV-yada CNN iyo Al Jazeera iyagoo soo xiganaya xogo kala duwan ayaa sheegay in Saudi Arabia ay gacanta ku hayso diyaarinta warbixin dawladda Sacuudigu ay ku qiranayso in wariye Jamaal Khashoggi uu dhintay si kama ah oo aan ula kac ahayn kaasoo ku dhintay waraysi qaabkiisu xumaaday oo ay qaadayeen 15 sarkaal oo Sacuudiga laga soo diray sidan Saudi Arabia waxay u arkeen xeeladda ugu macquulsan ee ay ku soo afjari karaan hawshan dheeraatay taas oo ayna ku badbaadin karaan sumcadda dawladda Sacuudiga. I think it is going to raise a lot of questions. It's going to raise the question of, well, if this is going to be your conclusion, why are you coming out with this 13 days later? Surely there must have been some sort of intelligence gathering information that came your way throughout the entire process. Because if you'll remember, the Saudis, up until this very point, when we got this information, when CNN got this information from these two sources, had been saying that Jamal Khashoggi Sacuudiga oo ay reer galbeedku ku daawanayeen in muddo ah dhibaataynta malaayiinta reer Yemen ayaa tan waxay ku khasbaysaa inay tilaabo qaadaan si ay sharciyad ugu sameeyaan qiyamka anshax ee ay sheegtaan inay dunida kale ku dhaamaan wadamo Mareykanku ugu horeeyo ayaa Sacuudiga ugu hanjabay inay cunaqabatayn saari doonaan hadday ku cadaato Saudi Arabia inay dileen wariye Jamaal muxuu Sacuudigu talaabo qaadi doonaa haddii la cunaqabateeyo arrimahaas waxaa ka jawaabay agaasimaha Al-Arabiya oo ay leedahay dawladda Saudi Arabia Turki Al-Dakhil maqaal uu qoray ayuu ku yiri sidan Sacuudigu waxay la heshiin doonaan Iiraan Sacuudigu wuxuu shidaalkiisa Shiinaha kaga iibsan doonaa lacagta yuan taasoo meesha ka saaraysa lacagta dollarka waxaana Sacuudigu uu saldhig military siin doonaa militariga Ruushka Saudi Arabia waxay kor u qaadi doontaa qiimaha shidaalka sidaas waxa yiri Turki Al-Dakhil waxaana uu talaabooyinkaasi ku tilmaamay kuwa Ameerika ay ku dhiman doonto dhacdadani waxay dunida u cadeynaysaa dhaqanka bahalnimada leh ee madaxda Sacuudiga hoosaynta ilbaxnimadooda iyo liidashada fikirkooda iyo dhaqankooda siyaasadeed ee ay sii odirisi kari waayeen sida fudud ee dhagartooda u fashilmi karto in kaameradahooda la tixraaci doono ayna jiri karaan qalab kale oo lagu basaasi karo oo iyaga ka baxsan oo goobta ama meelo kale yaala saacadda iyo telefoonka uu waliyahaasi watay sida uu u horumarsanaa askarta labada duyuuradood ku timid in aanay qarsoomi karin oo diblomaasiyiin u badnaa magacyadoodii rasmiga ahna isticmaalayay arrinkani si kastaba ha noqdee haddaan la cunaqabatayn Sacuudigu waxa uu ku khasban yahay in uu dawladaha waaweyn ku laaluusho oo uu ku aamisiyo lacag aad u tiro badan iyo dana kale taasoo ay u dheer tahay sumcaddooda oo aan weligood soo laaban doonin Cabdirasaaq Jubba warbaahinta تياتر الذي أصبح لا يطاق هو فقدان الحرية. كثيرين من المواطنين السعوديين من اختفوا قسرا في السجون وآخرين اختفوا اختيارا.